Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Walaalahayga channelkayga ku xiran aad iyo aad baan idin salaamayaa. Waan idin xiisay ma ii xiisteen horta. Maasha Allah. Muddaan idinka maqnaa. Muddadaasna waxay ila ahayd baan ku yir dhowr bilood yaanan soo gelin. Marka maasha Allah dhowrkaas bilood waxay ila tahay dhowr sano. Aad baan idinkugu xiisay. Maaragtay idinkan waxaan filayaa waa ii xiisteen. Maasha Allah tabaarakallah. Sanad wacan. Sanadkan Ilaahay ha nooga dhigo. Sanad khayrkiisa wata. Allah nooga dhigo. Sanadkan iyo sanada fara badanna Ilaahay caafimaad iyo cimri dheer hana siiyo. Marka walaalahayga maxaan idiin wadaa? Horta barnaamijka maanta idiin wada intaanan sii guda gelin haddaad nooshahay oo aad i dhagaysanayso oo Ilaahay karoonihii gees kaa mariyay ama intuu kugu dhacay Ilaahay kaa caafiyay alxamdulillaahi rabbil caalamiin horta idinkuna dhaha dhammaanteen aan wada dhahno alxamdu alshukri lillaahi rabbil caalamiin. Ilaahayga geeska naga mariyay, Ilaahayga nabadda nagu soo gaarsiiyay xilligan. Dad baa nasiib u yeelan inay maanta noolaadaan. Dad baa nasiib u yeelan inay ayagoo nool ee haddana maanta ay isbitaallo ku jiraan. Dad baa maanta xabsi ku jiro. Marka maasha Allah haddii Ilaahay uu lixdaadi lixaadna inta ku siiyay alxamdu alshukri caafimaad maanta aad ku joogto alxamdu alshukri horta waa inaan dhahnaa inteena nolosha ku soo gaartay sanadkan alxamdu alshukri lillaahi rabbil caalamiin markasta waa inaan dhahnaa. Marka walaashin Maariya maxay idinkugu tala gashay sanadkan cusub insha Allah intii awal ah idinka maqnaa ma maqnaan doono wiigi 2 jeer 3 jeer insha Allah inaan soo galo anoo fiidiyowga idinku sii dheereynay ilaa 10 daqiiqo meelahaas aan ku soo koobaya insha Allah barnaamijteeda maanta maxaa idiin wadaa. Maanta waxaan idiin wadaa ilaa 10 talo haddaan doono 30 talo waa ka dhigan karnaa laakiin waqtiga anoo ilaalinayo yacni 10 talaan ka soo qaadanayaa. hadduu time-ku ii saamaxana insha Allah kuwa kaleetan ku sii dari doona laakiin 10kaas waxaan isku dayi doonaa inaan ku soo koobo horta. Marka 10kaas talo waxa weeye sidee yacni ku sameyn kartaa isbedel. Sidaan ognahay qof walba wuxuu lahaa riyooyin wax waxaa jiro ma ogtahay niyadaada ku jiro markasta inaad samaysato markasta inaad qabatid laakiin aan kuu suurta gelin yaa jiro sanadkii soo dhaafay ama ka sii horbo. Marka waxaas ha ka walwalin. Already wixii tagay way tageen tiigsimaad male laakiin hadda maxaad qaban kartaa waaye. Marka 10kan insha Allah haddii aad ku dhaqanto isbedel yaa dareemaysaa. Mid ugu horeyso waxaa weeye waa aniga fikirkaygu wixii aan ka soo qaatay. Horta waqti hore waa inaad seexato si aad waqti fiican u kacdo. Habeenkii waqti fiican oo hore yaad seexanaysaa. Marka waxay kaa caawinaysaa inaad kacdo waqti fiican oo ma aragtay xilliga salaada. Haddaad seexan laakiin way kugu adkaanaysaa subaxii hore inaad kacdo. Marmar salaada kaa tagi xataa hurdo darteed. Wax badanood qabsan lahayd baa ku dhaafayo. Marka muhiimad ugu horeyso horta waa inaad waqtiga waa inaad xisaabisaa markaad rabto inaad horumar samayso. Waa waqtiga inaad ma aragtay ku xisaabtanto. Midaas waa saas waqti hore seexo si aad waqti hore u kacdo. Waqtiga hore markaa kacdo maxaa ku hirgalay marka waqtiga hore kacdo waxaa ku hirgalay waxyaabo fara badan. Salaadeed waqti fiican tukato. Ilaahay horta maalinka markuu kuu bilaabanayaba waxaad ku bilaabataa
dikriga ilaahay astaqfirullah subxaanallah walxamdulilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar tabaaraka allahu laa xawla walaa quwata ilaa billah adi iska ducaysa inta awoodo intaa shaqada haysata iska adkaarso marka waxay kaa saacidaysaa waxyaabo fara badan hawshaadii aad iska qabsanaysaa ilaahayna waad raali gelisay danahaagina waad qabsata marka midda waqtiga hore taasay kaa caawinaysaa iyo wixii kaloo aad ku darsan karto midda labaad waa inaad qorshe samaysato yacni waxaa qabsan lahayd maalinkaas toddobaadkiiba waxaad samaysataa timetable samayso waxaa ku qoranaysaa maalmahaas waxaad qabsan lahayd maalinkaas waxaad qaban lahayd maalinkaas waxaad qaban lahayd adaa yaqaana maalinkii waxaa qaban karto waqti u kala samayso haddaa caruur leedahayna sidoo kaleeto ayagana waqtigaas timetableka hala socdaan oo ku brograami si ayagana ay ula qabsadaan marka qorshahaasaad samaysanaysaa midda saddexaad waxaa weeye horto sanadka hore wuu tagay sanadihii hore way tageen wax tagayna tiigsimaad male marka waxaa samaysaa cafis samee dad baa kusoo dulmaa laga yaabaa dad baa kusoo dhibaateeyey si adigana ilaahay kuu cafiyo adigana iska cafi wax alla wixii ma aragtay niyad aad ku haysayoo oo ma aragtay bini aadan ahoo kusoo dhibay ama waxaad tabanayso dhan iska daadi waxaad dhahdaa cafis dar ilaahay baan uga tegay wax ka qayr badan ma aragtay ilaahay ku siinaya cafiskaas midda 3 miyaa marayaa midda kaleete waxaad samaysaa qayr fil ilaahay qayrka fil inuu sanadkan yacni ku siin doono wax badan oo qayr inaad filato niyadda aad gashato waalid haddaad leedahay inaad ka ducaysato midda 5aad waalidkaaga ka ducayso hadduu kuu nool yahay aniga waalidkayga labadeeda way dhinteen ayeedayaa nool laakiin ka ducayso hadday waalidkaaga ay ma aragtay nool yihiin hadday dhinteenna u ducee sababta ayaga intaas kusoo la ekeysiyey baarinimo ayagoo dhintaba way kaaga baahan yihiinoo waxaad u samayn kartaa sadaqaad u baxsanaysaa waad u duceynaysaa salaad kasto mar kasta maasha allah waalidkaana ka duceyso midii kalena kasii horeysana maxay ahayd qayr filo waalidka haddana ka duceyso waa 5 soo ma aha samayso yacni meel shaqo inaad aado ama waxbarasho aado haddana adoo waxbarasho aada isku day xataa meel un dhaqaalo kaa soo galaan inaad samaysato sababto ah 24 saac qofku ma ahaan karo qarash adduunkan wuxuu ku kala socdo waa qarash marka samayso shaqo ama wax un midda 7aad waxaa weeye jimicsi samee jirkaaga jimicsigu u baahan yahay weliba jimicsiga waa markaad soo kacdo iska tukato waxyaabahaas aad samaysato intaad howlahaaga kale usoo gelin 10 daqiiqo camal qaado jimicsi samee jirkaaga kuu kala baxayo fresha noqonaysaa maasha allah waa muhiim jimicsiga laakiin soomaalida ma tixgeliyaan midda kale iimaankaaga yacni isku day inaad qof yacni iimaanka horta iimaanka qofka ilaahay uma simin waa sida dadku ilaahay uu wax walba ugu simin buu iimaankan ugu simin oo dadku waa kale iimaan badan yahay marka iimaankaaga inaad kor u qaado aadan meelaha iyo dadka iyo ku mashquulino aad adigu isku mashquusho iimaankaaga aad kor u qaadan isku day qur-aanka baro oo xifdi waa midda 9aad miya midda 10aad waqti geli naftaada iyo qoyskaaga adoo yacni isku sii mashquulinaynin waxyaabo ma aragtay kaleeta iyo sheeko iyo waxyaabahaas adoo isku sii mashquulinayn waqti geli naftaada marka waqti sideed ku gelinaysaa inaad time aad ilaahay ma aragtay u cibaadaysato time aad ma aragtay waalidkaa ugu duceysato time ilmahaaga aad quraan ugu akhrisato time adiga aad quraan akhrisato waa wixii adi naftaada aad gelisay waay moogtahay waqtiga ugu faraha badan naftaada iyo owlaadaada yaa maxay ahayto
kaa mudan. marka maanta intaasaan idinkugu soo koobayo hadduu allaha awoodda la idmo. subscribe-ka hala ii saaro hadduu horey kuugu saarnaana gambaleelka furo. barnaamijyo aad u qurux badan oo aa ku qanci doonto oo farxad la idiin soo wada insha allah. marka taas waxaa weeyaan gambaleelka furta, subscribe-ta yaan la isweydiin, like-ta yaan la isweydiin, comment iigu soo qor wixii fikir ah oo ma aragtay muhiim ah. insha allah kuwa fara badan waan hayaa laakiin waxaan isiri 10kaas walaalahaaga u sii gudbi. marka walaalahayga saasaa sameynaysiin, isbeddel sameeya, dhaqaalo sameeya, horumar sameeya, waxa la barto, hala jimicsado, iimaan hala yeesho. saas waaye intaasna waa iska kaftan. wassalaamu calaykum.